jabiyo marlabaadka xisbi ahaan mowqifkayaga ayaan doonnaa maanta halka inaanu ka cadayno horena afayeenku uga hadlay waxaanan sugaynay inta xisbiga aanu mataanaa nahay ee waddani uu ka hadlayo arrintan ma garanaysaa qarannimadeenna wax yeelaysa ee lagu soo eedeeyey saxaafaddu ku soo eedaysay iyo dadka xoogaalkii shalay toolu guddoomiyuhu ku jawaabay markaa waa khasab maanta inaan annaguna aragtideeda dhiibanno arrintaasi layskuma hayo inay jirtay shacbiga reer somalilan waxaan u caddaynaynaa xisbi ahaan inaan laysku hayn arrintaasi inay jirtay oo ay kulmeen ra-iisul wasaaraha iyo laba wasiiroo la socday nairobi ku kulmeen xisbiga waddani hoteelka la yidhaahdo Serena ay ku kulmeen layskuma hayo shalay waxaan ka filaynay guddoomiyaha inuu yidhaahdo waar nimanka waxaasaan isnidhi qarannimadeedii nasiya baanu ku nidhi inuu waxyaabaha ka hadlay laakiin inuu dafiro waxa weeye waa tan maanta u soo fariisanay meediyaha cadeymaheediina warbaahintan horkeenayna markaan anagu gaarkaysunahay waan weydiinay qolada waddani welibana wafdiga kuwii la socdaan weydiinay waxay igu yidhaahdeen nimanka hudheelkaanu ku wada jirnay hudheelkaanu wada deganayno hudheelkaanu ku wada jirnay shaahaanu wada cabnay dee dabcan mar hadday ilaa halkaa qiranayaan iminkana wuxuu leeyahy guddoomiyuhu maba annaan arkinba annagana waxay noo qirtay inay shaah wada cabbeen mar hadday shaah wada cabbeenna dee wax waa laga wada hadlay ileen dadku aamusi maayee ta kale ee fadeexadda ah ee aan doonayna maanta shacbiga reer somalilan inaan u caddayno website-kan la yidhaahdo star ama joornaalkaba waxaan idiin sheegayaa in sir kaloo qarsoon baan idiin sheegayaa in lacag fara badan oo boqolaal kun oo dollar gaaraysa website-kaa yari qaatay iyadoo ay siinayso safaaradda dawladda Soomaaliya ee aanu shaarka nahay website-ku markuu warka soo qoray wuxuu ku jiray warku ilaa 9kii subaxnimo ayuu warku ku jiray warka waxa laga saaray 9kii iyo 10 mirir baa laga saaray cidda ka tuurtay waayo waa safaaradda Soomaaliya ka tuurtay safaaradda Soomaaliya lacag siisa website-ka iyadaana ka tuurtay lacag boqolaal kun oo dollarna uu qaatay website-ka yari waxaana laga yaabaa markiiba waxa buuqday maadaama shacbiga reer Soomaaliland ay qadiyadooda mar walba gaar ka hayaan markiiba website-ka yar waxa buuqday waan eegay fiyugiiso dad gaadhaya ilaa 80 kun oo qof ayaa daawaday ayaa warka akhriyay marka arkeen sida dadkaasi u akhriyayaan ayaa leeyahay wallahi waa ceeb dawladda Soomaaliya si ay xisbiga waddani raadkiisa u masaxdo ayaa lacagta ku bixisay waxaan halkan idinku soo bandhigayaa xilligii warka laga saaray anigu 9kii iyo 11 mirir baan dib u eegay warka iyadoo 9kii subaxnimo aan ku arkay warka waan ka waayay wixii uu soo qoray website-ku markii aan galay ayaan shacbiga u soo bandhigaya iyo markaa hore ee aan ka daabacay baalka nasiib wanaag waan daabacday markuu warka qorayba anigu waan daabacday markii dambe aan istiri eegna waan ka waayay warkii maxaa ay dawladda Soomaaliya u qaranaysaa warka waxay u qaranaysaa de waxa weeye waa heshiis hoose oo aynaan ogeyn ayaa la galay tuhunkaasina xisbiga waddani horena waa loogu tuhunsanaa oo tuhunkaas Soomaaliland oo dhammo way ku ogtay maantana way ku caddahay haddaba waxaan leenahay waa kan warkii waa kan wakaa xilligaasaan daabacay anigu 9kii subaxnimaan daabacay wakaa halkaa waxa ku qoran 9kii oo buuraa waa xilligaan daabacay anigu aan kala baxay website-ka war kale la soo geliyay oo xisbiga waddani leeyahay oo kii lagu bedelo lagu amaanayo waddani iyo Nairobi waxay ka dooneen waa kan 12kii duhurnimo kana la geliyay waddani baa lagu amaanaya wata waa 12kii duhurnimo kii hore ee fadeexadda ahaana way ka saareen waa kan markaan weydiiyey 9kii iyo rubuc markii aan weydiiyey page-kan buu soo saaray awoodu ma lihid buu igu yiri website-ku inaad warkii dib u hesho
waayo waanu ka dhilid garaynay bay yidhaaheen waa kaa xilligaan galayna waa 9:16 mir 9:11 mir baan galay waan ka waa haddaba waxaan leenahay qarannimadan Soomaaliland wixii naga soo maray waa ogtiin wixii naga soo maray inaynu curada ku weynay inaynu aqoonyahan ku weynay in labeentii qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland laha lagu waayay xisbiga wadana waxaan leeyahay dafiraadu waxa weeye daways ka soo koobata markhaatiyaal baa la hayaa cadcad inaan la kulanteen idinka afkiina markhaati ka rag waftigiina ka tirsan baa noo qirtay inay hudheelka saddexdan wasiirkii ay idin la deganaayeen walibana waxa ay raacisano tiraadeen iyaguna waxay ka hadlayeen in Soomaaliya la soo furo ma garanaysa arigii in la soo furay Soomaaliya u socotay waa been waxay u socdeen oo hoteelka u wada galeen oo shirka u wada galeen oo waftiga inta leegu baxay sidii qarannimada Soomaaliland ay mugdu gelin laayeen laakiin waxaan Soomaaliland waxaan ku faraxsanahay maanta mar hadduu wadanina uu yahay mucaarad nimanka halka marayeen ay maanta mucaarad yihiin oo doorashada Soomaaliya ay galayso yaa u ballan qaadaya inay helayaan doorashada horta intaynu maanta ku baxsano waa inta waxa nagaga xumaan leed maanta Siiraanyo la kulmi lahaa iyaga oo xilkeena haya waayo dhaawac buu isugu gaarsiin karaa waa madaxweynihii aynu idmanay qaranka inuu hay hogaamiyo isagu dhaawac buu yeeri karaa laakiin xisbi yaro mucaaradi shacbiga aanu u biqi maayo qarannimada Soomaaliland waxba yeeli maayo shacbiga reer Soomaaliland uu ogaaday Soomaaliland waxaan leeyahay war nala arkay waxaana alxamdulillah mar haddii maanta aanu soo gaadhnay shacbigii iyo saxaafadii wixii tuunkii markii hore aanu sheegnay anagu horaan u iftiiminay meesha in balaaya soo gashay horaan u iftiimin tiina maanta way cadda maanta way caddaatay runtii arrin aanu horena u sheegnay beeristaanu ku soo biiray waddani inay noqonayso mid bedela khariidada siyaasadeed ee Soomaaliland waxa kale oo iyadoo taa la yaaban yahay lala sii yaabay nin maalin dhow xafladda ka hadlayay wuxuu yiri Soomaaliland khariidad cusub baan u jeexaynaa taasina waa hadal dhameystiran weey khariidada cusub ee la jeexaya waan midaynaynaa weey waxba yaan loo dulmarmarin hadalka marka waxa weey waa alxamdulillah mar haddii xisbi mucaarada uu yahay shacbiga reer Soomaaliland ha ogaadaan meel kasto dunida ay ka joogaan hal qodob oo kala raacinaya waxa weey waxaan soo dhawaynayaa haweenweynaha koonfurta Hargeysa ilaa yaa waare ilaa ya ma sha Allah ayaan soo dhawaynayaa waxaan maanta halkan raali gelin ka siinaya xafladii maalintii dhow xisbiga waddan uu ku qabsaday hotel Guuleed oo dadkii xafladda tagay qaar kamidii maanta ay nala joogaan halkan xafladan halkan nala joogaan shirkan jiraayid oo ay been u sheegeen waxaan halkan doonayaa inaan erey ka yiraahdo ninka la yiraahdo Siciid Sulub oo ah gudoomiyaha Mustanbeedka xisbiga waddani haddaan gudoomiyaha Mustanbeedka ahayn hogaankii xisbiga fadhiya sidee buu maalin walba xaflad isagoon xisbiga title ka hayn xisbiga waxa lagu hadlaa waa title nin xisbiga xil ka haya xil kama hayo isagu Siciid Sulub xil kama hayo xisbiga waddani maalin walbana uu hadlaa meesha waxa fadhiyo gudoomiye ku xigeenada xisbiga fadhiyay waa loo ogolaan waayeen ka hadlaan waayo iyagu meel fog bay ka soo jeedaan gudoomiyaha Mustanbeedku hadal uu yiri baan maanta doonayaan inaan xaal ka bixiyo oo xanaf badan sameeyay hadalkaasi oo daafaha dunida meel walba laga soo garaacay dadkii uu meesha ugu qabtay xafladda haweenweynihii sharafta lahaa ee uu xafladda ugu qabtay ee badankooda uu beenta u soo sheegay Siciid Sulub wuxuu yiri haweenkan dega koonfurta ilaa awaare ilaa ma sha Allah saddexda yareeb Israaciil raali gelin baanu ka bixinayna koonfurta Hargeysa ilaa awaare ma degaan way ka balaarin Siciid Sulub aqoon la'aan kaama hayso haweenkaas ilaa halkii degaan aw barkhadle halleeya gacan libaax saba wanaag ilaa cadaadle
إلا حاحي إلا أود وين كل دجا وجان بعضو حق رئيسة وجان بعضو حق رئيسة حقرات داسنوا اللجوجية قاني نو وزير دل كان كسر نقطة بعطاي تذكر وحدو حق رئيسة وجان دجان ما أنت عديقو أنت ثلاثة دل كقبسن بعد حق رئيسة دومر كدل كقبسن ما عاد كسمين إنسا دجان كودي بعد إلا ما شاء الله بعد كل هذا وميلان الجرين دي إلا ما شاء الله وميلان الجرين يوي أرنتها الجرين بانو كبحنا إننا الحمد لله dadkii la duufsadeen badankoodu way soo noqdeen halkan ay fadhiyaan oo imika ay nala fadhiyaan haweenkii uu beenta u sheegay guriga